اللهم أنت السلام ومنك السلام. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal ku soo dhawaada, waxaan ugu soo dhaweynayaa barnaamijkeennii ahaa wanaagga iyo nabadda qoyska iyo qaybtii 9. alxamdulillah, saan hore u soo qaadanay waxaan barnaamijkan soo qaadanay waxay ahayd isku diyaariska aan qofku isku diyaarinayo inuu qoys fiican oo qoys wanaagsan dhiso. ka horreyntii alxamdulillah waxaan noo soo sheegay aan ahaa qofka maxaan ku dhahday waxa Ilaahay jalla wa ala uu maxaan ku dhahdaa ku dhisay ama reerka ama uu ku fiicnaanayo wax wanaagsan Ilaahay ku siinay waa iimaanka iyo amalka saalixa labadaas. waxana u daliilay nabi waxa u daliilay Ilaahay jalla wa ala wuxuu leeyahay man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. ninkii maxaan ku dhahday wanaag la yimaada ee waliba haddana iimaan la yimaada nolol fiican oo wanaagsan baan noolaynayna. kadibna waxaan soo qaadanay xaqii qofka dumarka lagu lahaa iyo xaqii qofka ninka ragga lagu lahaa intayn isguursan markay isguursadaan kadib. xaqa ninka ragga ay qofta dumarka ay ku leedahay waxaan waa labadaasi waxa weeye ta u horeysa waxa weeye Allahumma salli ala Muhammad wa nafaqada iyo maherka wada socda. ta labaadna waxaan leeyahay insha Allah ta'ala iyo mucaasharada wanaagsan. aan afar maxaan ku dhahday qofta dumarkana xaqa ay ku leedahay xaqa uu ku leeyahay ninka ragga waxa waa inay adeecda haddii uu wax wanaagsan u amro amarka Ilaahay jalla wa ala aan khilaafaynin. ta labaadna waa inay u xafidaan nafteeda iyo xoolihiisa. kadibna waxaan soo soconay waxaan soo qaadanay Allahumma lakal hamd. waxaan qaadanay xolkii lagu xuleeyay ninka ragga lagu xulanayay inuu gabadhiina niga guursado iyo gabadha ninka ragga uu ku doonanay afarta uu ku xulanay. waxaan niri labadii maxaan ku dhahdaa ninka lagu dooranay wuxuu nabigu kaleey salaatu wasalaam ida ataakum man tardawna diinahu haduu idin imaado qof aad diintiisa aad ka hesheen iyo akhlaaqdiisa aad ka hesheen wanaagiile. akhlaaqda waxa la xiriiraan waa qalbiga wixii ka soo baxaya iyo wa khuluquhu iyo akhlaaqdiisa wuxuu nabigu kaleey iimaankiisa diintiisa iyo khuluquhu. talabaadna qofta dumarkana wuxuu yiri nabigu kaleey salaatu wasalaam afar ba lagu xushaa dumarka. wuxuu yiri quruxdeeda, xoolaheeda, nasabkeeda iyo diinteeda. idfar bidaati diin taribat yadak. maxaa nabiga kaleey salaatu wasalaam intaas uga dan lahaa diinta markuu leeyahay ayaan rabnaa insha Allah ta'ala maanta inaan insha Allah ta'ala aan isa faahfaahiyo labada qof ay isguursanaysa. nin walba xaq buu ka kale ku leeyahay waa sax Soomaa. intiina waxay ku dhisantay waa diin buu ku dhisan yahay qofku macna diin waa in u lahaada labada dhinacba. diintiisa buu yiri ninka ragga ana nabiga kaleey salaatu wasalaam isagoo akhlaaqda u raaciyay qofta dumarkana idfar bidaati diin xooga saar buu yiri qofta diinta. maxaa meesha ku jirta qoftu labadaba haddii diin la yimaadaan waxa ugu muhiimsan wixii diinta lagu dhaqmayo waxa weeye saan sheegayna waxa weeye wax walba wuxuu ka yimaadaa waa qalbiga. maadaama ay diin tahay nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu ka rabaa dadka mu'miniinta ee diinta ku dhaqmaya inay dareen daakhili ay lahaadaan dareen daakhili ah oo ay isku dareemayaan waa inay lahaadaan. muxuuna nabigu kaleey salaatu wasalaam labadana xaq bay isku leeyihiin way isguursan doonaan laakiin ka hor maxaa meesha jirta waxa meesha jirta uu leeyahay nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku misaalay nabigu kaleey salaatu wasalaam dadka mu'miniinta wuxuu ku misaalay ka jasad. wuxuu leeyahay xadiidkaas dhageysta xadiidkaas waan u baahannahay marba haddii aan qof mu'minan nahay dad ahlul iimaan nahay xadiidkaasi waa in aanu haysanna aan lahaanaa wax qalbiga noogu jiro inuu ahaado. arrinkaas waxa weeye nabigeenu suuban salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu yidhi matal almu'miniina wuxuu ku mathalay dadka mu'miniinta sida ay yihiin iyo qaabka ay yihiin ayuu ku mathalay. matal almu'miniina fi tawaadihim kalgacaylka ay isku qabaan. guriga waxa laga rabaa inuu kalgacayl ku dhismo. wa tacaatufihim wuxuu yidhi dareenkooda. guriga ama labada qof ay isqabta waxa laga rabaa inay dareen lahaadaan ay isku dareemayaan. wa taraaxumihim iyo naxariista ay isku naxariisaneen waxa laga rabaa labada qof inay isku naxariistaan. ka mathal jasad waa sidii jidh keliyaata oo kale sidii jidh keliyaata madaxa ilaa iyo mijaha ka mathal jasad
إذا اشتكى منه النبي عليه الصلاة والسلام ونوش يا إنه لهذا حلية حدي جسد كاس مال كم جل كيساس مال كم هدو النبر وكدعو أما دب أي سوق قادو سفيعا أنا ودي سنو حدي نبر كاس مال حدي دبعتيري أي سوق قادو بولين نبي عليه الصلاة والسلام ماشي تضاعى له بولين نبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى منه عضو مال قيب كميت أيات نبدي سوق قادي إذا اشتكى منه عضو تداعى له وحوى يجرك أردن من مضح إلى مجهن أيا وحولي النبي عليه الصلاة والسلام درين حنون كاسي ماشي بسببتين أيا جرك أردن أيا وحو أسو جيدة بالسهري بولي النبي عليه الصلاة والسلام أسو جيد عاو مصيحاني لبتها بينكي لبتها سدرتيد أيها بيني ماذا أسوي جحنين إيش ولا المانيسا ماذا حنا حنقول قندو جبي السبا بحولين بقى على الله بيسوق كان الله بقى عذر أيسوق كان جرك أردن بدرين كاسي سبب تيس وحي بلعب ميسا إنه جركي بدرين محله قدن لي ولا عليه خير الله أنه وفج أنا درسي جيجا الحمد لله إله باب هذا إسكالك درسي جانو أردن با وحكل سين وأنتس صدق هذا ريركي لقى هلو saddexdaasi haddii laga waayo reerka dhibaato oo dhan bahaysa saddexdaasina waa saddexda ugu muhiim ah kalgacaylkuna mana kala maqna saddexdaasi way isku xidhan hadduu qofku dareemo mesela ka soo qaad dareenka qof baad u dareentay xaaskaagiyo xanuunsan xaaskaagiyo maxaan ku dhahday uur leh xaaskaagiyo foolanays xaaskaagi waxa meesha ku jira dareen baad dareentay haddii aad dareemtid waad u naxariisanaysaa haddaad u naxariisatid waad jeclaanaysaa ma kala dheer haddaad jeclaatid waxaad ku dadaalaysaa inaad u dareentid haddii aad u dareentidna waxaad ku dadaalaysaa inaad u naxariisatid ninka raggaa saasoo kale haddii qofta dumarkaa ay ku jirto saddexdaa sifo hadday ku jirto haddii ay jeclaato way dareemaysaa markay soo galo markuu sii baxayo markay ka warhaynayso markuu maqan yahay markuu jiro markuu maqan yahay reerkii oo dhan iyadii wali qalbigeedii baa ku xidhan meesha isagii dareen maxaa dhacday marka waxa bilaabaysaa inay u naxariisato hadday u naxariisato kadibna waxa bilaabaysaa inay jeclaato falidalik walaal tawfiiqda allahna waafajiye maantadan dhibaatooyinka dhacaya reeraha ay ku kala tageen ay dadkii ku kala baaba'een ay dadkii waxa weeye meeshii waxa ka tagtay midna haddii ay ka baxdo qofka labada kale waa israacayaan haddaad jeclaan weydid uma dareemaysid haddaad u dareemi weydidna uma naxariisanaysid haddaad u naxariisan weydid ma dareemaysid haddaanad dareemayna ma jeclaanaysid marka ilaahay jalla wacala waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahayna fahamsiiyo sifadaas sifada waxa weeye reerka oo dhan bay ku kala tageen sifada waxa weeye maantadan laga waayay reeraha walaalow wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu xidhayaa meesha wuxuu ugu xidhayaa uu leeyahay uu leeyahay qofkaas waa in laga helaa iimaan waa in laga helaa diinteenna ayaa noo tilmaamaysa inaan noqono ka jasadin waaxidi kor madaxa ilaa iyo majuhaynu inuu mid noqdo waxa weeye ma kala maqna falidalik muxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam diin waa in laga helaa diintana waa inay u raacsanaataa buu leeyahay ninka ragga akhlaaq waxa weeye haddii masalan gabadhu haddii ay maxaan ku idhahdaa labada saddexda kale hadday haysato ooyna diin lahayn iyadaa isku mashquulaysa quruxdeeda habeenay dharaar baa ku jiraysaa lacagteeda ma isku qurxinaysaa maxaa ku jirta reerkeeda maasha allah faan iyo boodbood iyo maxaan ku idhahdaa ayaa galaya laakiin haddii ay deen leedahay waxaan oo dhanba hoostu imanaya quruxdana waxa weeye ilaahay dartiiba isku qurxin oo odaygeeda isku qurxin lacagtay haysatana reerkeeda iyo ilmaheeda hadday lacag leedahayna reerkeeda ilmaheeda iyo odaygeeda ayay ku anfaaqi qofka maxaan ku idhahdaa haddii ay baahi jirtana reerkeeda iyo dadkeeda ayay maxaan ku idhaha u bandhigi marka midda meesha ku jirta walaalayaal tawfiiqda allahna waafajiye maanta dhibaatooyinka ka dhex dhacay ummadda islaameed dhibaatooyinka dhex dhacays waa taa uu noo sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaana iska ilaalisaa walaalkayga muslimka khayr allah ku siiya nabigeena suuban salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahy idfar bidaati diin taqdiinta leh raadso
maxaa dhacday ta diinta leh ood u raadsanaysid dareenkaas baa ku jira naxariistaasaa ku jirta iimaankaasaa ku jira waxa ku jira kalgacaylka uu na sheegay nabigu calayhi salaam gabadha khayr allah ku siiyo sidaasoo kale adiguna raadiskaad raadinaysa waa inuu noqdaa qof iimaan leh oo diin leh maxaa dhacday haddii uu iimaan leeyahay diin leeyahay wuxuu ku dhaqmayaa xadiidka uu sheegay nabigu calayhi salatu wasalam naxariista kalgacaylka iyo dareenka ayaa maantadan baryahan aanu laanahay reerihii oo dhan dhibtaasaa jirta waa la isku fiirinay waa la isku eegi maxaa meesha jirta waxa weeye ninkiibaa ka imanaya shaqadii aroortii markuu ka yimaado kadib haddii una saddexdaasi jirin saddexdaasi waa saddexda aad ilbaabka hortiisa markaad istaagtid aad kula kulmaysid wuu soo galay waa dareemi waxaad leedahay macaani xagadkaad maanta xaalkaagu siduu yahay waa dareem waad u naxariisanoo waxaad ka qaadaysaa shandada intaad ka qaadid baad u dhigaysaa waxaad leedahay orod waa ka shukumaanku wuxuu yaallaa jikada wuxuu yaallaa maxaanku idhahdaa musqusha tag oo soo quwayso biyo iska soo shub wuu tegey wuu ku soo quwaystay intaa uu sii socdo waxaad ku dadaalaysaa jacaylkiiba ilaahay qalbigaa galay maxaa dhacday dareenkii aad markuu soo galay aad dareentay iyo bixistii aad ku tiri orod sii bax naxariista aad u naxariisateed biyaha aad usii diyaarisay ee maxaanku idhahdaa musqusha aad biyo ugu shubtay tiina waxay ka tilmaamaysaa soo noqodkii uu soo noqdayna eed qadaysiisayna waxaad haddana weydiinaysaa xaalkaagu siduu yahay macaani xaalkaagu siduu yahay sidaasoo kale adigana waad soo noqotay shaqadii baad ka soo noqotay ayadii oo dhan maanta jikada ku jirta oo maxaanku idhahdaaye oo halkaas kuleelkiisaasi iyo kuleelka ilmaha waxaa laga yaabaa in ilmihii nuujinaysa dhinaca ilmaha ka nuujinaysa dhinacna maxaanku idhahdaa maxaa ugu horeeya marka aad weydiisa xaalkayga ayadii way ku tiri waa soo markaad soo noqotay ayadaad wareysani maxaad ku wareysani waxaad ku wareysanaysa horta wareysiga aad wareysanaysa waa naxariis aad leedahay xaalkaaga sudaha maanta dareenna waad u dareemaysaa waxaad leedahay dhibaata hadday jirto isla markiibaad dareemi oo qalbigaaga soo geli markuu qalbigaaga soo galana jacayl baa ilaahay jalla wacala kugu abuuray marka walaalayaal tawfiiqda allahna waafajiye dhibaatooyinkaas seen uga bixi lahayn nabigeenu suuban salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu le intaanaba la ibanin ka hor intaan la isguursan ka hor waa in laysku raadiyaa taas ninkana ku raadiyey diintiisa iyo akhlaaqdiisa لأن الدين بهدول يهينا والله جاي أبى الدين بوليه النبي عليه السلام محو قدر أخلاقنا لأنه وحكسب هذا دينته حول الصلاة عبادة محن كل هذا أنت سوي لكن محا ماشي كجرت حضنا وح كجرت ننكا سيجارة والنبي عليه الصلاة والسلام خلقهم يا أخلاق ديس أخلاق ده ولا له خير الله كسي وحكمت أخلاق ده وح قلبي كسبها محاكمة أخلاق وح إبرستا محاكمة أخلاق ده وحكمت نفقة نفقين يسيد دقالين يسد بكمل أخلاقنا وأخلاقنا كمل نحريست عدو نحريسان يسد مرك أور كلاده وحكمل نحريست عدو نحريسان يسد قال يسد أدخترك جين يسد نحريست أتكور هين يسد مرور بالله السدال لجو هيا تاسع أخلاقنا كمل تاسع ما أنت بريان مقن سيبانه هلي لهين لذلك ولا له وناجي تاسع إله جل وعلا نبينا صوبان صلوات ربي وسلام علينا وعليه dadka igu dhow maalinta qiyaamaha ee jaarkayga ila noqonay waa qofka akhlaaq wanaagsan akhlaaqda wanaagsan waxa kamid ah dowlad cadeynta aad u dowlad cadeynaysid akhlaaqda wanaagsan waxa kamid ah wareysigaad wareysanaysid akhlaaqda wanaagsan waxa kamid ah sheekada aad u sheekeynaysid akhlaaqda wanaagsan waxa kamid ah maqalka ama maqalka ka maqlaysid markay ku sheekeynayso أخلاقنا وحكمنا أفكار وقلنيسيد وحي محاكم هذا أجعشين معان أركتد بكوالله التوفيق ده الله نوافجيه أنا كنت دالو إن أنو أخلاق كل دقنو وأنا واجب كأديك كويس تولى لك يوم نفقة وكلية تمها معاشرة طيبة وشيء العلماء الشيء يعني يلا قربا الله نوافجيه إلى أن كسو قارينو درسجين إن شاء الله تعالى تبنات إلهي جل وعلا وحن إلهي كبرية إنه إلهي دم بجينا دافو دم بجوالدين تين دافو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.